سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. باب الأخبار. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد وما عدا هذا اعتبر أحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا لمثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. ثانيهما الآحاد يوجب العمل العلم لكن عنده ظن حصل لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسل السحاب تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا. وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما يقول أخبرا ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان الأخبار وحكمها. waxaynu baabkan ku arki doonaa haddii rabbi ogolaado al-akhbaar wa xukmuha akhbaarta iyo xukunka ay akhbaartu leedahay. haddaba ereyga al-akhbaar waa jamac marka hamsaha la fadxiyo en ikhbaar la odhan haddii hamsaha la kasriyana waa masdar akhbare ka yimid kolkaa fadxaha hamsaha ayaynu qaadanaynaaye ereyga al-akhbaar waa jamcu khabarin weeyi khabar la jamciyey ayuu noqonayaa ereyga akhbaar waa jamcu khabarin. khabarka waxaa loo yaqaanaa nooc gaar ah oo qowlka ka tirsan sheekhaana inoo tacriifini inshaha ayuu ka soo horjeedaa waxa run iyo been yeelan kara ayaa khabar la yidhaahdaa. maxtamala sidqa walkidba lidaatihi ayaa khabar la odhanaya. shaygu inuu run ixtimaalo oo run uu noqon karo iyo inuu been ixtimaalo oo been uu noqon karo marka daatadiisa uun la eego en qaa'ilka la eegin waa khabar markaa run iyo been hadduu yeelanayo. hadallada ayaa loo qaybiyaa hadal run iyo beenba yeelan kara iyo hadal aan yeelan karayn labadaa midna oo insha ah.
haddaba khabar iyo inshe way iska soo horjeedaan khabar iyo inshe khabar wuxuu ahaa wax sii jiray oo warbixin laga samaynayo inshuhuna waa waxaan sii jirin oo hadda la samaynayo waxa hadda dib laga samayn doonaa muxuu been noqon karaa ama runba noqon kara maba jirin ilayne oo lagama warramaye waxaa la yidhi nuqdada ay ambiyadu ku kala duwan yihiin ama inta badan ay isku khilaafi karaan waa dhinaca inshaha weeye akhbaarta ma aha maalan hadduu nebi ilaahay soo diray hadduu yidhaahdo qiyaamaa dhici doonta oo rasuul ilaahay soo diray uu sheego inay qiyaama dhici doonto rasuul kale ma odhanaya ma dhacayso hadduu rasuulka la yidhahdo ma dhacayso o la yidhah waa laba sharci oo kala duwan dee waxa weeye arrin khaldan baa meesha ka soo baxaya waayo waa isbeenin ma og tahay ambiyadu nuqdooyinka noocaaya iskuma khilaafsana in ilaahay keligii la caabudo inay qiyaama iman doonto in ummaddan la xisaabin doono in la wada dhimanayo layskuma khilaafsana qadaayaadka noocaas oo kale ah laakiin waxa lagu kala duwanaan karaa salaada intaa tuko iyo intaa tukanina intaa tuko iyo dee waxa weeye run iyo been iyagu male wixii amar iyo wixii nahyiye iyo run iyo been male oo waa inshaha inshiya wax qadaayaadka noocaas way ku kala duwanaan karaan haddaba khabarka waxaynu nidhi waa waxa run iyo been yeelan kara ee ama run noqon kara ama been noqon kara runta iyo beenta dib ugu noqon mayne horay ayaynu u soo tacliiqinay oon uga soo hadalay iyo halka laysku beegbeegaya halkay tahay saddexda nisbo nisbada kalaamiyada ah iyo nisbada khaarijiyada ah iyo nisbada dihniyada ah saddexdaa nisbo kuwa laysku eegayo horaynu uga soo hadalay soo caynka maahayn kolka cashirkii aan kaga soo hadalay ardaygu dib ayuu ugu noqonayaa markuu qiimaynayo maxaa runa maxaase beena laakiin ha ogaado waasida inayna jirin run iyo been wax u dhaxeeya oo khabarku uu faa'iideeyo ma jiro siday muctasiladu sheegeen qaarkood ilaa waxay yidhahdeen ninka waalan hadduu warramo runna maaha beenna ma aha waxa noo daliila bay yidhaahdeen aftara cala allaahi kadiban am bihi jinna ilaahay baa rasuulka gaaladii baa rasuulka ku tidhi suu ilaahay inooga xikaayoonayo aftara cala allaahi kadiban ma ilaahay buu been ku dul samaysanayaa nebi maxamed am bihi jinna mise wuu waalan yahay oo isagoo waalan buu warramayaa kolley ma rumaysno oo waa run iyagu ma leh waayo waxaynu ognahay inay qiyaamada iyo bacsiga iyo xisaabta bay diidanaayeen ma rumaysna qadaayaadka kolka waxay dhahay aftara cala allaahi kadiban ma ilaahay buu been ku dul samaystay am bihi jinna mise wuu waalan yahay oo junuun iyo waalli baa ku sugan kolka nin waalani hadduu warramo run maaha oo qadiyadda mayna rumaysnayn beenna ma aha oo aftaraa bay qaabiliyeen oo amtani waa mucaadali bay halkaasay la mareen culimadu markay macneeyeen waxay u sheegeen amta inay mucaadalo tahay la gelay alikhbaar fi xaali ljinni waxay qaabiliyeen aliftiraa laakiin iftirahan ay muctasiladu ka dhigeen mutlaqu lkidbi iftiruhu maaha mutlaqu lkidbi iftiruhu waa beenta ta ugu xun waa adigoo og in waxani been yahay inaad samaysato bahal taagan ayaad samaysanaysaa dhisaysaa waanad og tahay inay been tahay waa aliftiraa laakiin alikhbaar fi xaali ljinni waa kidbigii caadiga ahaayo iftira ma aha bay leeyihiin halka ayay la mareen walkhabaru khabarku allafdu waa lafdiga almufiidu faa'iideynaya macno almuxtamilu ee badha sidqan run iyo wakidban beenba khabar waxaa loo yaqaanaa allafdu waa lafdi kolley beryahanba waan sharxaynay waxaa lafdi la yidhaah walkhabaru khabarku allafdu waa lafdi cod iyo xuruf ayuu sitaa almufiidu waa mufiidoo macno ayuu faa'iideynayaa haddaba mufiidkani ma mufiidkii kalaamkaa mise waa mufiidkii kelmadda horta labada mufiid ma kala duwanaayeen ma mufiidkii kalaamkaan u jeednaa mise mufiidkii kelmadda kii kalaamka ayaynu u jeednaa almuxtamilu wuxuu badhaa sidqan run iyo wakidban been wuxuu noqon karaa run sidoo kale wuxuu noqon karaa been run iyo beenba wuu noqon karaa kaa ayaa horta khabar loo yaqaana waxa inaga baxay muhmelku wuu inaga baxay oo lama yidhaahdo muhmelka lama yidhaahdo waa khabar waxaa kaloo inaga baxay inshihiina wuu inaga baxay sidaa amarkii iyo nahyigii iyo istifaamkii iyo oo iyagana khabar lama yidhaahdo haddaba khabarkii run iyo been maadaamuu yeeshay labuu u qaybsamay tawaatur in lagu soo naqliyo iyo aaxaad in lagu soo naqliyo minhu waxaa ka mida nawcu nooca oo qad nuqila la soo naqliyey
تواترا تواتر ahaan loo soo naqliyay tawaatur tawaaturkani waa masdar oo qabla al-aakhir ko taada aba la goday tawaaturan maadaama masdar noqday ismiba weeyo waa la iska tanwiiniyay tawaaturan laakiin ficilkiisa taada kor dhignayd oo muxuu ahaa tawaatara ficilkii tafaacala buu ahaa tawaatara tawaatara waa tataabaca weeyo israac raacay ayaa la yiraahdaa hadda tawaaturku waxa weey xad tawaatur xad loo yaqaan ayaa jira oo waa in warka ay dad sheegaan beenan isku waafaqi kareynin xad tawaaturku tiro go'an iyo raqam la sheegi kara maleeyahay jawaabtu waa maya xad tawaaturku raqam go'an male oo lama oran karo warka waa inay 100 sheegaan ama warka waa inay 10 sheegaan waxa la eegayaa uun duruufta warniyow tiro inta la eegi warka ay sheegto iyagoon is ogeyn oon isku meel joogin warka ay sheegaan been ma noqon kara waa maya waa xad tawaatur hadaba xad tawaaturku cilmi inaan ku amal uu waajibiya inaan ku amal falno xadiis hadii rasuulku inoo soo la soo wariyo rasuulka laga soo wariyo xadiis kana dariiqa lagu soo wariyay tawaatur am xad tawaatur ba uu gaaro waajibay inagu tahay inaan xadiiska ku amal falno waa qasabay inagu tahay inaan ku amal falno oo amalka uu inagu waajibinaya waxa kale uu waajibinaya yaqiin inaad ogaato hadalkii rasuulka inuu yahay sallallahu alayhi wasallam ama warkan yaqiin baad u ogaanaysaa waxaan nuqdadan uu ka hadlaya yaqiin inay tahay si dhab ah ayaad u ogaanaysaa kolka waxa la yiraahdaa xadiiska mutawaatirka amalna wuu waajibiyaa cilmina wuu waajibiyaa yaqiin bas sheegani ku noqonaya shaki ma yeelan karo been ma noqon karaba waa hubaalba weey laakiin haduu xadiisku aaxaad noqdo xadiisku haduu aaxaad yahay ama ha ahaado aziizki ama ha ahaado gariibki ama ha ahaado mashhuur xadiisku haduu aaxaad yahay oo dariiqa lagu soo gudbiyay dariiqii aaxaadka uu noqdo xadiiska aaxaadki amal wuu waajibinayaa oo waxaad u daliishanaysaa inaad ku amal fasho waad u daliishanayo waad ku amal falaysaa laakiin cilmi yaqiin miyuu keenayaa waa maya buu sheekhu ku yiri yaqiin ma keenayo oo ihtimaal baa gali kara inuu qofkani ismoodsiiyay ihtimaal ayaa iman kara inuu laakiin tawaaturka ihtimaal male tawaaturku wal khabaru khabarku alladhi kawi al-lafdhu lafdhiga weeyi al-mufiid faa'iideeyo macno al-muhtamilu baraya sidqan sidqi run ayuu baraya وكذبا بين وبريا بين يرب نقون كرا منه وحا كميدا خبركي نوع با كميدا نوع او قد نقل لسو نقليي تواتر لغو سو نقليي هدو تواتر لغو سو نقليو قد افاد وحو فائديي للعلم علم ايو فائديي وركن انه يقين يحي بعد اوغاتي او يقين بكو فائديي وقد افاد للعلم علمي أيو فائديي كل هدو علمي فائديي عملك كفضضنا وكوريا إنك عمل فشنا واتقوات كفائديسا وما عدا هذا كان تواتر كفائدين يوحى كصهري اعتبر أقيمه آحاد إنو يهي أقيمه حديثك هدونا تواتر فائدين ونا تواتر قارن مع الله قيمين يا آحاد با الله قيمين يا إنو يهي حديثك وحديث آحاد وعزيزكي يا غريبكي يا مشهوركي غريبكم محوها حديثك غورما غريب لو رنجري dabqadihiisa dabqad kamida tirada warisay markay imisa tahay hal markuu wariyo ayaa la oranaya xadiiskani waa qariib waxa weey midalan dabaqad buu xadiisku maraa dabaqadka dabqada ugu badan 200 ba ha gaadha haday doonto 500 ba ha gaadha haday doonto dabqadu ugu yar yahay loogu magac daraa midalan warkaan anigu sheego sheekh maxamed u sheego sheekh umar u sheego sheekh aamir u sheego bal haday imisa dabquu waray afar dabqa soo maaha sheekh maxamed dabqadiisaasi iyo dabqad baa lagu tilmaamaya tiisaasoo dabaqada waxa la rabaa inay maxay noqoto aziz hadii la rabo in qariib hadii la rabo qariib waa hal dabqad hala waxa laga yaabaa sheekh maxamed in 500 qof uu la wariyay oo warka la maqlay 500 idinkoo aan warka idin sheegay ma qariib uu noqonaya marka dabqadaada qariib ma yahay ma tawaatur ba weeyii sheekh umar baad u sheegtayo sheekh umarna
كن بابا مركز شيء يسيل شوقي كن وكسر حديثك تواتر كيبو كتيرة شيخ عمر باو شيخ عامر شيخ عامر كل ديبو النقضي حديث كان متواتر بين كتل المامي او طبقة الشيخ محمد بن ايجي ما متواتر بان كتل المامي او طبقة الشيخ عمر بن ايجي ما واحد كتل المامي غريب انه يو طبقة الشيخ عامر بن ايجي يعني ايجي طبقة ugu yar yahay un baa la eegaya طبقة ugu yar yahay ayaa loogu magac daraya waa qariib baa la oranaya xadiiska ilaa ruwaadiisi baa mid noqotay مثلا انت حديثك غورما عزيز لو oran jiray ilaa aaxaadka u qaybsamaye غورما عزيز loo oran jiray markay dabqadiisa warinaysa imisa tahay laba qof markay yihiin baa عزيز loo oran hadaba مثلا hadii sheekh maxamed warka uu wariyo oo 500 isagoo uu wariyo sheekh maxamed cabdi wahaab uu ka wariyo oo kun uu noqdo sheekh umar uu ka wariyo laba ay noqdaan xadiidka maxaa loogu magac dari qariib lama oranayo ilaa dabqada ugu yari hal ma ahe qariibkii uu ka sareeya mutawaatirna lama عزيزna lama oranayo ilaa dabqada ugu yari saddex ma ahe mutawaatirna hadalkii badaa muxuu noqday markaa dabqada ugu yar baa loogu magac darayaa muxuu noqday عزيز buu noqday waa عزيز baa la oranayaa ilaa laba noqday dabqadii ugu yarid baa laba ahe mashhuurku muxuu ahaa hadaba mashhuurku dabqada ugu yar inay maxay noqoto inay 3 noqoto dabqada ugu yar hadii 3 tahay baa mashhuur la oran wixii inta ka duwan tirada la yiraahdo been la isku ma waafaqi karo dabqada ugu yar ayna been isku waafaqi kareynin dabaqaadkiisa oo dhan waxa la oranayaa mutawaatir aynu niraahno ama xadiiska tawaatur aynu niraahno rasuulka ahadiista tawaaturka lagaga wariyay waxa kamidaba حديث كان رسولك وجري صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وشيخ يري منه وحكم ذا كان وخبرك نوع با كمذا نوع او قد نقل لسو نقليي تواتر لو سو نقليي للعلم علم بون قد افاد فائدينيا للعلم ذا حق ضمباد مرسن او واحد اورن كرتا قد افاد وحو فائديي للعلم علم أيو فائدية طلب للعلم لام كاسي محاش لوغو داري إلا أفادة سيدي مفعول قادن جرتي تقديم كل تقديمي أيا ضعيفيي أو لام كوالا قو دارا مفعولك هذه لتقديمي سيدو إلهي بآيات القرآن كأويري إن كنتم للرؤيا تعبرون للرؤيا وجارية مجرور كان ما هيسا يو مفعول أيهي تعبرون تدنبو مفعول أيهي ما داموا اللي قديمي مفعول كلام إسكا قدر سدي للرؤيا إسكا ده هدبا إلا أن الداد الرؤيا ده عبير يسين بالي قد أفاد وحو فائدية العلم علمي أي فائدية يقين بكو فائدينية وما عدا هذا كان وحا كسوهرين تواتر كوحا كسوهرين اعتبر أقيمي آحاد أقيمي حديث كسوا آحاد كل هدي أنا تواتر أهين أحدنا قيب بدن أيو قيب سماياه صدح ذا أيان كسليني أرانيسا وغريب يا عزيز يا مشهور أما ضعيف كي يا وحيابه كلا دي مالك اللي وذاك الجليان فأول النوعين لبض النوع كأوجه الريا وكي لبض النوع كوري أحد كي متواتر كواكي تواتر كوي فأول النوعين لبض النوع كأوجه الريا ما كوي رواه أي وريسي أما أي وريان جمع ما رواه واك وريو جمع أيا وريي لنا إنك أيو إنو سو وريي عن مثله إصغو كلا أيون أو كوريي عزاه أما عزاه ونسبيي عن مثله بونسبيي إصغو كلا أما إصغو كلا كوريي وينو هينا هلكا هدبا حديث كمتواتر كا وحيابها لينوغا باهن يحي متواتر كا waxa loo shardiyaa ama tacriifkiisuba uu yahay baa la yiraahdaa an yarwiya jamaa'atun yamtani'u atawadu'u على الكذب من مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي النقل إلى المخبر عنه وحلق مارمانا حديث كالرواديسو ضبقت كستوي مريان إن عدد تواتر أي قاران عدد أنبين اسكو وافقي كرينين وأن يروي جماعة وحورين إيسا أن يروي جماعة ذا تردو ترقو عن ملهي يمتنع وحا ممنوع نقون إيسا التواضع إن يسوافقان على الكذب بين يسوافقان وحا حديث كضبقدا وريسي جماعة أنبين مرنا بيسكو وافقي كرينين
haddaba asaaliibta been isku waafaqu way kala duwan tahay markii moobeelku uuna jirin way adkayd dhowr magaalo oo dalka ku yaala wararka lagu kala hayaa hadday isku mid noqdaan in been la isku waafaqay markii moobeelada iyo internetka iyo gawaadhidii ay iska yaraayeen been maba noqon karin la isku waafaqi karin laakiin maanta kol hadii moobeel la hayo waxa laga yaabaa inuu xisbi isbalansado xisbiguna xafiisyo ku leeyahay dalka oo dhan inuu yiraahdo warka dadka aynu u dhiibno magaalo kasta markuu waagu bariyo makhaayad baa lagaga sheekaynaya waran jirin warsow kan markii isbedelay tiro markii hore loo arkayay inay tahay xaddu tawaatur oo been aan isku waafaqi kari lahayn ayaa hadda xaddu tawaaturkii ka bixi karta oo waxa isbedelay qaabkii loo noolaa ayaa isbedelay oo bari hore noocii loo noolaa iyo hadda nooca loo nool yahay waa laba nooc oo kala duwan weeyii dabqad kaste waa jamaaco ayaa warinaysa been inay isku waafaqaan ay mustaxiil tahay waxayna ka warinayaan iyagoo kale dabqadaasi dabqad lamid ka warinaysaa dabqadaasina dabqad lamid ka warinaysaa ilaa inta laga gaarayo matnigi mukhbaru anhu ilaa inta laga gaarayo haddaba waxa la rabaayo kale asalkuna waa inuu noqdo mushaahado ama simaac mushaahado iyo samaac baa la rabaa asalkuna waa inuu halka tago fa awwalu naw'ayn labada nooc ugu horeeyo oo mutawaatirka ah ma ka weeyi rawaahu uu wariyay jam'un jamac baa wariyay lana inaga ayuu inoo soo wariyay an mithlihi isagoo kale ayuu ka wariyay halka an mithlihi da nuskhooyinka qaar baa qoraya limithlihi nuskhooyinka qaar ayaa halka an mithlihi da limithlihi qoraya hadii limithlihi la yiraa oo halka an mithlihi da aynu aragnay limithlihi aan ugu dhawaaqno waxa way limithlidu azaahuday ku tacalluqaysa an mithlihiduna waxa wanaagsan inay rawaahuda ku tacalluqdo oo labada xaraf macnahooga ayaa yara kala duwanaanaya sida inoo muuqata rawaahu waxa wariyay buu sheekhu ku yiri rawaahu waxa wariyay jam'un jamac baa wariyay lana inaga ayuu inoo soo wariyay azaahu wuuna u nisbeeyay jamacaasi limithlihi isagoo kale dabqadani dabqad lamid ah ayay ka soo warisay وهكذا سدا أيو أهاضي إلى الذي إلاكي انت لغا قاديو عنه حقي سوكا هذا الخبر وركو كي وركا لغا مقلي إلى انت لغا قاديو ضبقات كستو ضبقات كورين استيابا وإنه نقطة عدد أنبين اسكو وافقي كرينين عدد كأنبين تسكو وافقي كرينين ضبطي إيا ملو شرطية يا تلو ضبطي شروطي صحيحة ملو شرطية يا لو ما شرطية يو كل هذا حد تواتر بقعده ما حاضر شرطي عدد كودو حد تواتر بقعده لما إيجا قف كان ضبطي سوا محل ميدا كان كلا ضبطي سوا محل ميدا حفظي سوا وحاس واد كبحي سامر كوا واد كيجا تجيسه لا باجتهاد اجتهاد يونا كسقنان اجتهاد أصل كمرك الله تجو اجتهاد لجو اجتهادي لو ما باهنا بل سماع مقالة وانو كمقالي أو نظر أرقتي وانو أرقني مشاهدة لو باهي وكل جمع كسته شرده وحلو شرطية أن يسمعوا إني كم مقلان قلدي كوريسي وإني كم مقلان قلدي كوريسي جمع كسته وجمع عن كوري اجتهاد كيونا ميلك سوقلي والكذب بان منهم جمع حقوق كأهاتا بالتواطؤ إسوافق إيه شين كأهاتا يمنعوا إن لمن عيّو جمعاً وحلو شرطيا جمع بين اسكو وافقي كارا يينا نقنن وشرط لباد أو جمع أوليهي هل كا أيو شيخو كغبحي متواتر كي ثانيهما كوغ اللباد آحاد كإيه ثانيهما كوغ اللبادنا الآحاد وآحاد كحديث كاللي يراه يوجب وحو واجب العمل عمل أيو واجبيني أو إنها تكون عمل فشا قصب بيكو قطعي ودن بأبي ساعديك عليه للعلم علم سمى واجبيو لكن عنده أكتيس أظن ملا أي حصلي ملا جروء وحو احتمال با إمان كرا حديث كهدي أونا تواتر قارن قف كان رواد وريي إني اسموتيس أو قلي
ismoodsiis inuu galay ixtimaal ah ayaa jira waad qaadanayo xadiisnimaad u qaadanayo ugu camal fali laakiin waxaad yaqiin ka dhigayso oo yaqiin aad ka dhigaysa ma aha sidaba cilmigan mustalaxa loo yaqaan culimadu markay dejiyeen xikmaday ka lahaayeen waxa weeye beenaalaha in rasuulka xadiiskiisa lagaga ilaaliyo ilaa indana badan baa soo baxay iyo ujeedooyin badan baa soo baxay rag badan oo waxa la arkay iyagoo culimo iska dhigaya oo culimo iska dhigaya diinta haddana dhabarka jebinaya oo markii la dilayay ragga qaarkood ay qirteen intaasoo boqol oo xadiis oo been ah oo iyagu ay sameeyeen inay axaadiista rasuulka ku dareen markaasaa la yidhi sidee loo kala saari haddaba wax shuruudaha loo sameeyey markaa shuruudo adag ayaa loo sameeyey oo beenaalaha lagu garto dee ragna way soo baxeen imaamulbukhaari iyo rag la mid ah oo habeen iyo maalinba u soo jeeda oo beenaalaha ilaalinaya imaamulbukhaari isagoo welibana aan cilmiga xadiidka aqoon badan u lahayn oo yar ayuu riyo arkay wuxuu ku riyooday rasuulka isagoo sala allahu calayhi wasalam diqsiga ka celinaya nebi maxamed isagoo diqsi ka celinaya ayuu ku riyooday culimadii fasiraysay markii la weydiiyey waxaa loogu fasiray beenaalaha oo diqsiga la martaba ah ayaad xadiidka rasuulka ka ilaalin doontaa sidii ayuu u dhacay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii ayuu ka dhigay imise ayuu fadeexeeyey beenaale ama dad yidhi dee nebigaa sidaa yidhi waynu ognahay shuruudahana aad buu ugu adkaa haddaba xadiidkan marka lagu leeyahay waa daciif ha moodin uun ilaahay agtiisa inuu daciif yahay mar kaste ha go-aansanin uun ma waxaad moodi inaad go-aamin karto uun waa daciif marka lagu yidhaah shuruudihii culimadu sameeyeen buu ka soo bixi waayey xadiidka daciifka ah dee ninka dabdigiisu khalkhalaa ka mid a adigoo iminka sheekhoo lagu yaqaan haddii 2 maalmood la arko hadalkaagoo isdhaafaya xadiidkaaga maxaa laga dhigi jiray culimo daciif baa laga dhigi jiray kolkaa miyayna dhici karaynin 2 maalmoodna khalad inuu kugu dhacay intan dambana inuu warkaagu sax yahay miyayna dhici karaynin waa ixtimaal dhici kara weeye kolkaa culimadu way dadaaleen cilmigan mustalaxa amarkay inoo sameeyeen khayr allaha siiye aad bay ugu dadaaleen ثانيهما كيس لباد الآحاد وآحادك يوجب وحنا واجب العمل عمل أيو واجب للعلم علم سواجب مايو ويقين أذن أرن دويه لكن عنده أكتيس أظن ظن إيام ماله حصل وحصل آحادك وحلو قيبيا مرسل إيا مسند با لو قيبيا مرسل إيا مسند قد قسم ولا قيبي آحادك لمرسل إلى مرسل حديث مرسل أولا دري إيا ومسند مد مسند أولا إسنادي لبدا سالو قيبي مرسل إيا مسند با لو قيبي حديثك ومرسل إيا مسند أيو قيب سمي مسندك وكسند كيس أولا ما يسترين هاي ومتصل إسناده مرسل كنا وكأي سقط قشي سقطه حذف باقلي ولمن حق صرير رسولك أي حذف أيوك قلي حذف باقلي قد قسم ولا قيبي حديثك لمرسل مرسل إيو مسند بالو قيبي وسوف يأتي إمن دونا ذكر كل متكست حسكيسة ومنهما لبضا كترسن فحيثما ميل كست أو بعض الرواد قار كود يفقد اللوايو فمرسل مرسل بالعرن مرسل كامر لبا اصطلاح له مر سي عام له استعماله سي عام ايا لغا دغا او حذفك اما مدها نقدو اما حذفك لبها كا اهادو اما حذفك حق سره ها غلو اما حذفك حق دخده ها غلو اما حذفك لبا اسكو خيغا ها نقدو اما حذفك يونا اسكو خيغين مرسل با marka qaar la iskaga idlaaqa laakiin waxaan ognahay marka cilmiga mustalaxa lagu jiro inaan intaas oo dhan mursal la wada oranin ee magacyo kala duwan inay leeyihiin mucdalkii baa jiray oo de isaga laftiisu saqdi iyo xadaf buu ahaa ma ogtahay kolka xadafku halku gala la qiimeynaya iyo inta xadfan baa la qiimeynaya wuxuu ku yiri fa haythuma ba'd ruwaad meel kasto ruwaada qaar kood yufqadu la waayo fa mursal ba xadiiska la orani oo lagu magacaabi wama cadaahu ka waxa ka soo hada ruwaada an la waayina ay wada sheegan yihiin musnad baa la oran haday ruwaadu wada sheegan yihiin waa musnad saalixun wuxuu u soo badaa musnadku lil ihtijaaj iyo daliishi
musnadkii waa la daliishan ilaa waa musnadoo sanadkiisii baa dhammaystirmay lal mursalu mursalka se la daliishan maayo walow aimadu halkaa ay hadalka keeneen qaarkood mursalku waa qaybta daciifka buu ku jiraayo lama daliishanayo laakiin maraasilu saxaabada ama maraasilu saxaabiga maraasiishiisa kuu mursal ka dhigo saxaabigu tuqbal waa la aqbali oo saxaabadu dee dhammaantood cuduul bay ahaayeen haddaba saxaabi markuu mursal ka dhigo waxaa la odhanayaa ka xadfanu meesha ka maqani waa saxaabi uun saxaabiga jahligiisuna mushkilad ma leh in saxaabiga adan garanayn shakhsiyadiisu mushkilad ma leh maraasilu saxaabi tuqbal buu ku yidhi saxaabada maraasiishooda waa la aqbalayaayo waa la daliishanayaa taabiciinta maraasiishooda ka warrama lama daliishanayo saciid ibnulmusayab mooyaane isaga waa la baadhay oo sadegiibuu wax ka warin jiray abi hurayra wax ka warin jiray inta badan kadaa kan waxaa lamida saciid ibnulmusayab saciid ibnulmusayab baa lamidee iqbalan iska aqbal fil ixtijaaji xagga daliishiga maa rawaahu kuu wariyo mursalan isagoo mursala ka uu mursal ka dhigo saciid waa la aqbalayaa waa la qaadanayaa haddaba xadiidkii maadaamoon musnad iyo mursal aynu u qaybinay musnadkii waa la daliishan aynu nidhi isagoo aaxaad ah mursalkiina la daliishan maayo aynu nidhi saxaabiga saxaabada maraasiisheeda iyo saciid ibnulmusayab mooyaane waana la baadhay saciid ibnulmusayaboo ninka maqan ayaa saxaabi u noqday ilaan waxaa laga baqayaa markuu taabici mursal sameeyo irsaaliye xadiidka waxa dhici kara taabici kale inuu ka wariyey taabici kale inuu ka wariyo meesha saxaabiba una ku jirin baa dhici karta kolkaa waxaa lagu leeyahay mursalka iyo musnadka xukunkoogu sidaasoo kala noqonaya xadiidka nooc mucancanaa jira mucancan waa xadiidka can fulaan lagu wariyo haddaba cantani talow maxaynu xukunkeega gelinaa ma waxaa laga yaabaa nooc tadliisii inuu ku jiro oo la odhan karo maraasiisha aan haleeshiino mise waxaa la odhan karaa tadliis kuma jire waa masaaniidee musnadka aan haleeshiino musnadkaa la haleeshiiyaa la odhanaya mucancankana waa la daliishani markaa wa alxaqu waxay haleeshiiyeen bilmusnadi xadiidka musnadka ah ayay haleeshiiyeen almucancana xadiidka mucancanka ee cancan lagu kala qaaday fii xukmihi xagga xukunkiisii aladii xukunka oo lahu isaga tabayana usoo cadaaday oo in la deliishada ah xukunkaa ha la deliishada aynu nidhi mucancanku wuxuu la xeer noqonayaa xadiidka musnadka ah ayuu la xeer yahay oo waa isku xukun buu noqonaya haddaba talow sideebaa marka shay riwaayo marka la gudana kayfiyatu taxamulka iyo kayfiyatu adaha sidee wax loo gutaa inta badan tadliiska aynu maqalay waxa weeye qofka oo warka si kale u yara dhiga warkiibu si kale u yara dhigay maanta war baad maqashay kii warka uu ku dhacay adiga kuuguma odhane kuu ku yidhi baa kugu sii yidhi war miyaana muuna noo warramin baa tidhi hebel muuna hebel noo warramin tadliis baad samaysay ma arkaysaa maxayaad ka booday kii idiin dhexeeyo isna hebelkii un baa tagtay waxaad ka dhigaysaa inuu hebelkii kuu warramay taasaad ka dhigaysaa waa khatar haddaba siyaabaha warka marka la gudanayo loo gudanayo balan eegno wa qaala wuxuu yidhi manka calayhi dushiisa shaykhuhu shaykhiisu qara'a uu ku akriyo sheekhaagu hadduu kugu akriyo kitaab ama xadiid ama shay hadduu sheekhaagu kugu dul akriyo sidan hadda aynu iskugu dul akhriyayno oo kale hadduu kugu dul akriyo waxaad odhan xadaanii wuxuu iiga warramayuu iiga sheekeeyey kamaa yaquulu siduu u odhanayo akhbaranii xadaaniina wuu odhan akhbaraniina wuu odhan oo labada dariiqba qofku uu samayn karaa xadaanii iyo akhbaranii walam yaqul odhan maayo fii cagsihi cagsigiisa xadaanii aduu haddaad sheekhaaga ku dul akrido haddaad tidhaa sheekhaaga aan kugu dul akriyo kitaabkan ama warkan aan kugu dul akriyo aduu ku dul akrido xadaanii lama ogola inaad tidhahdo uu ii sheekeeyey walam yaqul odhan maayo fii cagsihi cagsiga oo aduu markaad sheekha ku dul akriyeysida xadaanii odhan maayo laakiin yaquulu wuxuu odhan raawiyan isagoo warinaya akhbaranii buu odhan akhbaranii kanu akhbaarka wuu qaadan laakiin xadiidka qaadan maayo waxaysu lam yaqra' markuuna akhriyin sheekhu kuguma dul akhriyin adiguna kumaadan dul akhriyin waqad ajaazahu laakiin ijaazu kuu siiyey markuu ku qiimeeyey ayuu ijaazo kuu siiyey
yaquulu wuxuu odhanayaa qad akhbaranii wuu ii warramay ijaazatan ijaaza ahaan buu iigu warramay akhbaranii ijaaza ereygan ijaaza ah wuu raacinaya in sha allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam